halkani waa radio iska faham idaacadina qaybaheeda kala duwan waxaynu ku soo qaadan doonaa madaxweynaha Museveni oo qadaadici weydiistay qaramada midoobay madaxii hore ciyaalka xaafadda oo sheegay inuu san jirin khilaaf u dhaxeeyo ciyaalka xaafadda iyo burcadbadeed Soomaaliya oo heshiis la galay wadan kamid ah reer galbeedka warkii oo fidsan madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa qadaadici weydiistay qaramada midoobay kadib markii ay shir isugu yimaadeen magaalada Kampala madaxweynaha ayaa sheegay in lacag loo baahan yahay isla markaasina haddii aanan la helin dhibaato keeni karto madaxweynaha Uganda wuxuu yiri lacagta waxa loo baahan yahay sida ugu dhaqsiyaha badan wuxuu hadalkiisii ku bilaabay sida tan funding we don't care it comes from it should come from those that get money for us that get anigu waxba igama quseeyaan lacagta meesha ay ka imaanayso waxaan u baahanahay lacagtuna waa inay bixiyaan ayuu yiri madaxweynaha dadka lacagaha haysta haddii kale ma sii socon doonto duqaynta uu inta badan ciidamadiisa ay ka geestaan suuqa bakaaraha madaxweynaha ayaan ahayn markii ugu horeysay uu qadaadici weydiisto qaramada midoobay madaxii hore ciyaalka xaafadda ayaa sheegay inuu san jirin khilaaf u dhaxeeyo ciyaalka xaafadda isla markaasina uu dagaalkaasi socon doono inta laga saarayo ciidamada Uganda dalka Soomaaliya waxa uu yiri waa dagaal ay ka wadaan idaacadaha isla markaasina ay doonayaan inay ku kala furfuraan ciyaalka xaafadda madaxan sare ayaa khudbadani ka jeediyay masaajid ku yaala magaalada Muqdisho isla markaasina ugu baaqay ciyaalka xaafadda in ay midoobaan ayna la dagaalamaan ayuu yiri aan dadka ku soo duulay wadanka Soomaaliya dhanka kale burcadbadeed Soomaaliya ayaa heshiis la galay wadan kamid ah wadamada reer galbeedka heshiiskani ayaa ka dhacay xeebta Haradheere isla markaasina ay isku afgarteen in nin walba geeskiisa uu ka xariiftamo wadankan ayaa lagu heshiiyay inuu iska jilaabto isla markaasina uu ogolaado burcadbadeeda inay qabsadaan maraakiibta kale oo aan asaga waxba ka qusayn isla markaasina aan la isku mashquulin ma markii ugu horeysay burcadbadeed Soomaaliya ay si farsamo ah u heshiiyaan wadan kamid ah wadamada reer galbeedka isla markaasina ay sahlaan inay hooshooda sii wataan idaacadina iska faham qaybaheedii kala duwanaanta si ku eegay waad mahadsantihiin dhageystayaal